Jabuuti dalkaygay maray gaajoonayaan dhalinyaradii reer Jabuuti dhalinyaradana waxaan leeyahay yaa leedin dulayn dulle bay rabaan inay idin badaan waxaan loo soo galinayo wadanka idinka leedin ku dulaynaya ilaahay idin ma dulayn dhalinyaro masaajida gala culimadan uu keenay ee qafaasadaha sitay kooxdiisa iyagoo ka hadlaya wali ma aragi iyagoo daro ka hadlaya ma aragi iyagoo caruurta hanuuninaya wali ma aragi maxay ka shaqeeyaan ku shaqlan yihiin awde culimadu may ka hadlaan culimadu waxay yiraahdeen cid kale maan ku doorsanaynaba iyaguna imka xadiiska ku soo biiriyeen waa kuwa halkan fadhiya ee wada qafaasada situu isagu soo walwaalay marka waxaan ku sheegayaa Caaq Ismaaciilow dalkan iyo dadkan waa dumisay dhalinyarada hala daba qabto dhalinyarada waxaan leeyahay isdaba qabta waa la idin baabi'inayaa shoomeer baa la idin ku tala galay dulli baa la idin badaya aan ilaahay idin badin sharaf iyo karaamad iyo cizi baad leedin mustaqbalkuna waa idinka iyagu mustaqbalka ubadkooga u doonayaan inay mar walba dusha idinka haystaan uguma tala galin dhalinyarada Jabuuti inay dalka ka muuqdaan afarta ay dhaleen ee wada sanqaraya ayay doonayaan inay haystaan dalka waa kuwan Paris bay joogaan imika etaa parallel kulligood xagan waa kuwan soo wada xagaa baxay jaamac ali geelle kulli waa kan isaga reerkiisii kulli wada jooga Faransiiska maxaafadoodiiba xoolihii baa la keenay la soo xaday gaalana diirad bay ugu fadhidaa gaalana toshashkii bay shidatay way daba taagan tahay maalin dhawaad maqli doonti qirjim xoolihii ay noo soo noqday iyagana katiinado ila waa xoolihii ummadee lebiya malaki waa xoolihii xitaa koontooyinkooda lacagtii ku jiray baa maanta la daba socdaa oo la daba taagan yahay marka wixii ay naga galeen ilaahay ku dhaafi maayo wuu inaga qabani laakiin inaguna aan kacno ardayda jaamacadu ha dareento ha soo dhaadhacaan sariif forseegan ka hadla diida ilan dalkan inaga ale weynaan wax diidno xaq baanu leenahay wixii aan qaadi kari weyno ee xuquuqdeena lagu tumanayo waa inaan diidno waa dalkeeni waa dhulkeeni haddaan halkan wax ku diidi weynaan kee wax ku diidaynaa war inaga dhulka le inta ilaahay ka sokaysa afartani xoolaha bay meesha u fadhiyaan inaga dani noomale marka aan ka kacno fadhiga ardayda jaamacadan la hadlaya college haduu joogo maartay lycée haduu joogo dhalinyaro waa dulmantiina kaca siiba ardayda jaamacada lagu tumanayo ay caruurahoodana jaamacadaha qaaliga geynayaan lacagta Jabuuti ku geynayaan xoolaha dalka ku geynayaan kuwaasaan la hadlaya ka kaca fadhiga macalinka qudhiis uu dulman yahay waxba ma haysto macalinka qudhiis uu dulman yahay waa kan Facebook xoolahoodii ku tamatacayade ee meeshu doona kaga dhacay meeshu doona guriga kaga iibsanaya iyagiina ay laayihiin bariimkoodii iyo xoolahoodii ka waramade maxaan kolkaas sugnaa reer Jabuuti mandaada shanaadna maxaa ka dambeyn maxay noqon doontaa waa baab iyo balanbal iyo barakac iyo sumalhaad marka intay daadintu ku soo galin baa la iska moosa aan ka kacno fadhiga hayagu markay wii yiraahin inagu noo hortood waa inaan nidhaahoon dareernaa oon tusnaa inaan nacnay oo naan rabin inta ilaahay ka sokaysa xaq baanu leenahay war cabsida ha laga baxo war dulliga ha laga baxo war fararka ha laga baxo war ilaahay bayna ciiseeyo ina karaameeyay dhulkan waa dhulkeeni inaga xilka u dhiibanay way ina gabeen dantooda mooyaane dan kale male waan hungownay dalkeeni baan ku nahay qariib waa layna gumeeyay fadhigaan ka kacno war fadhigaan ka kacno bashar baan dhulkan u dhashay oo sharaf leh ilaahay bayna ciiseeyo ina karaameeyo darmaday noo dhigay reer Jabuuti marka afartan isbarkatay eedii adeerka loo yahay la doonayo in sanka laynaga talo sandulo laynaga dhigo war laynaga dhigi maayo inaga kiciye fadhiga waxaan is dhaafino waxba inooma soo wadan ciidankuna waa inaga ciidanku halku doono waa joogo waa inaga dhibta way nala qabaa caruurtiisu dugsi male guri male waxba ma haysto kabihi baa ku qalalay koobiya ma helo bacadkaasu taagayo soo guduud buu wada qaaday jonis bay wada qaadeen dhiig bay wada kaachayaan dhakhtar nafle ma helaan ilmahoodu dhakhtar ma helo maxaan sugnaa war ka kaca fadhigo dalkeena waqti baan joognaa aan isdaba qabanno Soomaalidu waxay tiraa haruub daatay caanaha hambada la qaban jiray war hambada aan qabanno dalkani waa baylah baaba baana lagu wadaa markay ka tagaan inuu dalkani baaba ay rabaane inaga baabi'i maayo aan dhexda u xidhanno aan isdhaafino kuwan waxaad ka arki doontiin fiidiyoga wax kasta fiidiyoogaad ka arki doontiin
code de pêche kii baa jira oo la sameeyay 9 September 2002 inay bedeleenna way dhici kartaa laakiin taa waxaan u soo qaatay waxa ku qoran iyo xeerku wuxuu yahay waxa jira chapitre 3 article 7 wad arki doontiin code de la pêche 9 septembre 2002 waxaad arki doontiin chapitre 3 waxa weeyaan exercice de la pêche article 7 waxa ku qoran dans les eaux sous juridiction djiboutienne de la République de Djibouti waxa taa la leeyahay iyada oo hoos timaado awoodda maaragtay Jamhuuriyadda Djibouti kalluumaysiga ganacsiga ayaa loo ogol yahay maraakiibta ka diiwaan gashan tolay Djibouti iyagoo ka diiwaan gashan Djibouti iyo muwaadinka reer Djibouti baa loo ogol yahay inuu badeena ka kalluumaysto ma ila garan walaad akhrisan doontiin waxa loo ogol yahay ummadda reer Djibouti inay badooda ka kalluumaystaan ka markabka ka diiwaan gashan Djibouti iyo ninka reer Djibouti ayaa loo ogol yahay inay badeena ka kalluumaystaan wixii inta ka badan looma ogola badii maxaa laga dhigay ku durduriyaa leeyahay sida doontiin ka yeelaa leeyahay waxa doontiin ku sameeyaa leeyahay badii oo sa dhanka doontiin ula kaco dhanka doontiin ugu durduriya waayo waxa weeyaan ummadda reer Djibouti baa biyaha leh waka article-kii maraakiib Shiina ah oo shalitiyeya oo dad Shiini isaaran yihiin ayaa badaheeni dadkii wadaniga ha ciriiri ku galiyay qodobkaasna wuu yaalaa marka code maaragtay de la pêche ma shaqaynayso markay ajaanib arkaan lacag bay arkeen markay ajaanib arkaan rashwaday arkeen markay ajaanib arkaan fermataageelkay wadaniga ka hormarinayaan waka qodobkaasaad arki doontiin in badaheena waxa ka kalluumaysanaya qof aan reer Djibouti ahayn inaan loo ogolayn iyo markab ka diiwaan gashanayn Djibouti maxaa maanta inagu soo jabay shalay reer Oboq maxay ka ooyayeen maxaa xinaq sugeen xayu mari ama maraakib iyo afakimete xayu badak kullun weeritaana madacatan hay September 9 la marfi kala may ahayn code de pêche abletun ama madacama hatta Djibouti dayloke Djibouti maraakiba ke waa markaba xulumaduuda nibad toyan usunu hay Djibouti maraakiba marayablen wacdi laqo keenik baytan gubba keenik baytan fermatageli may laqotan toodi iyo beejtana taamad dimalun asaa ku xayu togorri kulli kali Djibouti daylo bad xulumaduudan xuleeni kaadu tumagayaan tama maraakibtan tama madca maxaa heeniyahay awaa Djibouti daylo badak yaay sedeeni faran hay to tablen siinahay tama dowlatu iyahtu dhicitee hay tama dhintot ne tabire tama dhintot sin tabire kii hay Djibouti daylo kinuk sinni xakki soolay ugu taa toogida siini kare xanu num si yalla kani mari si malowita ama mari sinigi bitenin lowa sinigi bitradako kuntuba barake waytaki num tama sinit mali to gorra fakyanay hayuha fakyanay tama sinit malun skanke ken daylo ken burah marake waytaki si macnaato ayti ha baak waytaki nanu hayuha fakna no to gorra fakna no iyana mik akke waytaki to xisabat meenin hay tamahka hay madcageynihnu bahane Djibouti daylo akke waa mari bad xule waama autorisation alle waama asakuma ahkahay calaminki xarite ha Djibouti badal maraakib tublensiina xayul baatili kullum beeshitan Djibouti daylo xayu daylo kun xabad kullum way tahtan tom xaki maakin nahay hinnahay Ismaaciilow inay rooro boqna kalluun waayaan iyo reeto joriya dhalintii reer Djibouti maraakiibta badana aad soo dayso idinkoo code maaragtay de la pêche sameeyay 2002 9 septembre 2002 saxeexay marka dhagahaaga iyo qodobadaada isma maqlayaan waxba dhagahaagu ma jiraan waxba ma ogid wax alla waxaad war u haysaa ma jirto waka maraakiibtii adduunku nagu soo jabay Shiinaha kontaraad siiseen inay badayada gurtaan ay badayada siday doonaan ka yeelaan ay carruurtayada gaajo ku dilaan ee dhibaateeyaan kalluunka xafadiisa u doonto Shiinuhu ma anagu nala leeyahay dhulka adu saaxiib ku leeyahay deyn ka qaatay
adaam suuq madow wax kaga saxeexday bari Djibouti baa la saxeexday anagu waxba lama saxeexan anagu war uma hayno anagu waxba uma dhiibanayno shiinaha shiinu xaafad buu leeyahay tanna anaga la inta ilaahay ka sokaysa de dhalintayada ku gaajoonaysa ee xabadii kalluunka weyday sidoo isagu u goran karaa adigoo qodobkaana sameeyay code de la pêche qui sameeyay de Djibouti le 9 septembre 2002 maantana ay sidani dhacayso de inaad khaayin tahay oo wixii ballantu ahayd aad ka baxday dawada marxaatigeedii ma been baad waa tane anagu maqal iyo muuqaal waxaan idinku keenayaa reer Djibouti inaad kacdaan oo damqataan oo diirtaan oo dalkan inaad idinku leediin inta ilaahay ka sokaysa aad yaqiinsataan baan rabaa oo xaqeena isku istaagno oo damiir iyo dadnimaan leenahay aan dulliga diidno waka wixii ay wada saxeexeen waa been wax walbo ay saxeexaan markay ajaanib arkaan rashwada u xilanayaan inay waxoogaa qaataan bay u xilanayaan ma rabaan wadaniga ma rabaan dalka inay maalgeliyaan wax allaaliyo wixii xoolo dalkeena soo galay aaway maanta wada ma leh dekad aan ku faano fiican ma leh magaalada dhexdeeda wada aragteen baabuuradii iyagoo vignette wada bixinay karkar wada leeyihiin meel walba biyo diibis iyo qurun baa fadhiya maxaan nidhahaa de maxaan kugu aaminaa caaq Ismaaciil maxaad nala hor iman indha adaygun baad nala hor iman waxa la oran jiray wuxuu ma bacada indha adaka de ma bacada tahay indha adakida damiir laa waa tahay dulli baa dadkaagii baday dadnimo xumo iyaad meeshan la soo fadhida in yaruun damqo dalkani waa dalkaad wax walba ku heshay dalkani waa dalka maalka aad maanta ku faanaysay milyaardheerka ku noqotay aad ka heshay dadkiisina ay candhada dhulka ku hayaan ilaahay ma orande laakiin waska ka qabanayna waxaan anaga leh umada reer Djibouti baa leh aad iyagana xaraan kaga dhigtay balay kalena aad loogayso waxa la yiri wax ninkii lahaa loo diiday niman xaq u lahayn baa qaata idinkana waa layniga maroojinde kuwii lahaabad ka fogeyseen ma kuwii lahaabad u diideen ma kuwii xaq u lahaabad ka ilaaliseen ma balayaan xaq u lahayn baa de maalin walba idinka maroorsan oo cidlaad ku soo haray oo dhabankiya gacanta isku kaadhigi taana kule xaqiiqdan ku sheegayaano kaalama gabanayo runtaano kaalama gabanayo waad ogtahay allana waa ogyahay adiguna waad ku fadhidaa inaad maanta raran ku fadhido xaqiiqdeedii waad ku fadhidaa laakiin waad is adkaynaysaa waan hal ad waa aqlimada de hal adaygu moogti hal adaygu markuu qofku khaladka ku adkaysto waa aqlimada de maalintan caaq ku yiri aanu been ma sheegin sidaa markaan ku eegay wixii kugu munaasab ahaa un baan ku dhiibay anu adiga dawladadu waa dameeriye labadiisii daan xashar u bashar baatihiin dalka iyo dadka uma naxaysiin dalka iyo dadka inaad ka danaysatiin baad go'aansateen laakiin anagu hadeed waan kacnay fadhigii waan ka kacnay waan israacnay qabyaaladii qurun waan xoornay adiga rarkaaga dhignay qabyaaladii qurunkii adiga rarkaaga dhignay meesha doonta ku furo na dhaaf adiga qurunkaaga ya shixnadaha foosha xun leey godatid qabyaaladana dhaxda ku sii xiro ilaa adaa markii horeba shukaynayo noo keenay ma qabyaaladii qurunka anuma qabyaaladii qurun baan naqaanay adiga lagaagama horeey 99 wixii aad soo walwaashay adigu baa waxaan keenay marxaatigeediina waa la wada hayaa reer Djibouti ma indhaha ilaahiin mise aqli waa maangaab aad u malaysa reer Djibouti way ka horeeyaan oo way ka dambeeyaan way ka sareeyaan laakiin samir weeyaan dalkiya dadka loo samrayaa adigu se nooma turaysido inaad nalaysaad ku tala gashay laakiin ilaahay ma orande adigu inaad dhiigayaga ismarisaad ku tala gashay shacabka reer Djibouti wax walbiba dheef iyo dib bay leeyihiin reer Djibouti isbedelka maanta dheef iyo dib buu leeyahay wax walbo dheefa oo la doonayo dib bay leedahay dibtana aan waajahnadii waxba naguma sameyn karaan wad mooyaane wax kala laga baqayaa de wadkana waa loo simeeyay xabada ayagu noogu tala galeen bilow iyaga ku dhacday dilka ay noo qorsheeyeen bilow iyagu inaga horeeyay oo iyagu dhexdooda ka tafatay iyagaan isku dhiibnay warmahe sumuhum bisaxnuhum keeduhum binahruhum baan leenahay sumuhum bisaxnuhum keeduhum binahruhum
waa kelmad carba waa af carabi 99 kuda ila garan maayaan baan u malayn laakiin dhaladkii reer Djibouti kelmadda way garanayaan sumuhum bisaxnuhum keeduhum binahruhum baan leenahay waxay noogu tala galeen iyagaan u dhiibnay faraqaan ugu xidhnay iyaga ayaan ugu dhiibnay iskugu dhiibnay oo dhexdooda ka tafan shicibkana ilaahay baa ilaalin amaanada ilaahay uu shicibka Djibouti waa daacad dibta lagu hayo iyo dulmiga iyo duliga lagu hayo dadka u samray ee dalkooga jecel weeyaan laakiin isagu waa ka idinka arkaya diyaarada jeed ay intuu sameystay dorogyada lagu gurayo kii madaxa dhiila ahaayo adeerka sodonka uu ahaana halka hor dilaal ka yahay waa wada dilaal sidii u dhayiin iyo malaal iyo qurnis urursaday oo dalkan masaakiinta alla doonaya in cagta la mariyo dana la marin maayo ilaahay baan cuskanaynaa ilaahay baan tala saaranaynaa waa iska kaxaynaynaa waan hurgufaynaa kuwa wayna dhaafayaan laakiin maxaa laynaga rabaa reer Djibouti soo baxa guryaha ha ka ooyinay soo baxa maaliba dadkii lahaa baa dhacsaday maaliba dadkii lahaa baa dhacsaday markii ficilka ina haysto kala maalina ka socdayde harajaanu baa xukumayay harajaanu baa wax walba lahayd waa sida imika daadarkeysiin wax waloo wanaagsan ba anaga leh meel waloo fiican ba anaga inagu qurux badan tahay de ilaahay ma laga baqo war dalku uu naga badan yahay maalkuna uu naga badan yahay umaduna waa reer Djibouti xaq baan la wada leeyahay dalkan xaq baa lagu leeyahay dalkuna xaq buu dadkiisa ku leeyahay intiiba iyaga ay siiyay marka fadhiga aan ka kacno oo aan waxayna dhacsano waxaan is dhaafino heeriyadan heeriyo weeyaan waxa ina saarani heeriyada aan iska kor qaadno waqti boodaya yimiday zaman baa yimiday inoo heelinaya xaq baa inoo heelinaya aan fadhiga ka kacno reer Djibouti yaan aqaar jaadiyo 5 kuleyna siisan yaan aqaar jaadiyo 5 kuleyna siisan oo dadnimadiina iyo damiirkiina lagu dulaynin oo looran waa kuwa reer Djibouti ba wax ma nacaan reer Djibouti wax ma nacaan yaa leeynoran wax nacbaan leenahay waxna cadaynaan lahayn gaalkii maynaan kicineen barqo kuwana barqo ayaa agta saarayaan kani galbay baan idin ku kala mooyee kani uu galbaday yeyna waqti siin aan isdhaafino sida u dhaqsaha badan aan isdhaafino kan uu galbaday Ismaaciil wuu galbaday uuna socday uuna og yahay waxba is adkeyn waxba is matixin markaana dhaaf dib la'aanna dhaaf shalay baa daaqada ka soo gashay markaad madaxweynaha isku sharaxaysay rag badan baa lagu luqo jibaaray oo daaqada ka soo gashay maanta daaqadii aad ka soo gashay baad ka bixi qasab baanad kaga bixi barya maaha ku tala galtaa sharci kuma adiman xeer jujub iyo bob iyo dhacbaad ku timiday xeer jujub baad ku timiday iyo qasab iyo sanduleyn dadka muquuninaysa laakiin waa laga baxay wixii maanta waxaan ku leeyahay hadaad sida u dhaqsaha badan xilka ku wareejin weydo adaa cirka roob ku og adiga ayaa cirka roob ku og baan ku ciidankuna kuwa aad moodaysa maaha waa kuwa dayacan ee gaajoonaya ee sunku dhexda gooyay ee qowlaladu cadaadeen qaar kalena xaad ku yeesheen xoolihii dalka marka waxaan salaamayaa ummadda reer Djibouti dal iyo dibad aan fadhiga ka kacno aan isku duubnaano dalkeena dhacsano ilaahay baa ina baday ilaahay baa inoo dhaliyay waciideen iyo calankeeni marka ninkii dhoofku yimid bay geeridu dhibay saacad Ismaaciil reer Djibouti way israaceen adu meesha doonto ka bax waxa doonto ku hadal kuma rabno anagu no sankiya monda down Ismaaciil Umar baan leena waxaan salaamayaa caaq Ismaaciil oo is adkaynaya oo caaqnimadii iskugu maraq furay adaa isku maraq furayba waayo caaqu waa haladay markuu qofku isagoo khaldan ku adkaysto waa sidaadaas oo kale marka adaa isku marxaati furay caaq Ismaaciilow iska tawakkal baan ku leenahay wad ceebeysan tahay daalinka u weynay dalkan iyo dadkan dumiyay waa adiga eta baralelo to proclamer dayacan dalkiyo dadka u daran iyadana waxaan leeyahay ayaama ku haray waligaaba baari wareeg hadda daan hadlay baari baad joogtaa oo dhumaalaysanaysa oo kolba gaari qola ma dhaadhacdina waxa dirtaa gaarta korada tira dukaanka soo eeg horta inuu maran yahay warkaaga waan haynaa cabsida maxay ni galiyay radio bukaaca ni galisay radio bukaaca maxaa looga baqayaa waa xaqa ay ku dhawaaqayso ila madfac ma sito garanaad ma sito anugu warka jooga sidaas inama qabatay baan idin leeyahay mar walbina waan idin oran waana xaq inaan idin idhaaho dadkayga masaan badu haysanaysiin ugu tumanaysiin
nagu tuman maysiin oo sukin kor kicinayna waxaan salaamayaa dawladdan dayacan ee nagu daawanaysa dhibaatada ee danaystaha noqotay ee aan ilaahayba ka baqayn shimbiraha xamaamadaha waxaan leeyahay idinkana ilaahay baa idinla xisaabtamaya xilka wada wareejiya haddaad dadnimo leedihiin oo iswada casila raganimay doontay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu